halkani waa tilmaan TV akhyaarta qadarinta qiyaamada nagala socotiin oo soo gudbinayna barnaamij khaas ah haddii aad markuu horeysa boggan fadlan subscribe ku samee YouTube channel naga si aad ula socoto wararka iyo warbixinada haddaad mar hore ku samaysay mahadsan ciidanka kasta oo la soo tababaro Soomaaliya diyaaraddu markay ka degto transit bay Muqdisho u tahay oo gaday u duusha hubka Turkiga adduunka ku caawiyo soo shiraaciisa ku xiran bugada ka daga hogaamiye cusub ahay gedana waxa loo jooga ma ogin ninkan wuxuu soo diyaarinayaa ilaa xadka Kenya waxa la yaalo wixii degan horta iyo beelaha kabla la xiliidado inuu daad ku qaado geerigooda hadii ka suuliyada waa xaqiiq weeyaan waa dagaal buu kula jira maanta yimid ilaa hadda dagaal beesha ka badan waxa la yiri iyo hadalkaygu waxa la yiri hebelow colka iyo naaguhu waa kay dumarka iyo naaguhu ogyiin baa la yiri colaadi waa kay dumarka iyo naaguhu ogyiin baa la yiri in badan farmaajo beeshiisa raga waxaanu ku sheeg aan ku doodnay صح inuu beesha kabla la xay Jubbaland Puntland leedahay gedanay noqon doonto meel mareexaan waana istiraashid ilaa xilligii siyaad barre soo taxnayd qaacidada waxbaan ku tusay waagii ogaadeen dagaalku ka dhacay dadka ogaadeen degan qaxeen sheeko waxay jirtay labada sano kala qariye la yiraahdo waliga ma maqashay dadkii ka soo qaxay ogaadeen iyo Jubbooyinka meel laga dajiyay waliga ma maqashay ma kulli hiiraan baa la dajiyay halkaas lagu hor istaagay wax beela kale la kor dajinay hawiye saaqbaa la kor dajinay oo lagu garaacay iyagana lagu darbaynay waxa inay degaan baa loo diidayaa sheekadana horta waa sheeko taxano oo soo jirtay in fara badan waxaad iga maqasheen marmaro tusiyay dhabaha toosan mariyaaba ardaygu meel u weegyahay macallinkiisa ninkan shacabkii iyo dukumiintigii afweyna u qoran hoos ku wata xaqiiqo iskacada laakiin ma la shaqeynay haddaba waxa weeye hal qodob buu farmaajo ku dhici karaa nimankan haweeneyda dekadooda iyo garoonkooda iyo cashuurtooda lagu guneeyay magaalada laga wada xidhay haddana si socon karinba waxoodii war ma weliga waxa la ugu leedahay nin ku tashiilayo kullu sanba ku tuuri kullu kali ku tuuri baad aragtay haye waxa weeye nimanka waxa la idin siinayo boqolkiiba dhibicin ka yar baa la idin siyaa idinkaana iskale iimaanka la idin qaadi ardadka baarak astaghfirullah ninkan xilligiisii wuu dhamaaday hanyarada iska daayo waxaad ka baryootamaysaan ilaa idinku ahaataan oo madaxweyne noqotaan oo ummadda maamushaan maxaa idinka qari haye war waxaan leeyahay beeshan daarooda magaca xun wadaagtana fariin baan u direeyahay war hargeysaa dhibkii u geysateen carartay oo ilaahay hadda la kari lahayo oo shaadka buluga ku diray ima maqsimiya axmedow xasan geelle iida aan laba kelmo iraahde meesheeda injineer may maqashaa ku maqlayna ha wadaha maariyaha baa ku weydiin su'aal wado hadalkaaga waxaan ka baqayaa nin baa wuxuu yidhi farasku sidii wadaan iyaan arkaa inuu ridi doone waxaan ka baqi xamar sida loo wadaan arkaa inay sida hargeysa noqoto waa gaar u go'daad leedahay hadday gaar u go'do Soomaali xag maba jirtaba maba jiraysaba hadday calan kala qaataan ka waran beriyaar horta halkaasay ku dhammaanaysaa war marka niman yahow wiilkan waxa kaliya Soomaalinimo rama ama isku haya waa beesha hawiye waxa Soomaalinimo ay la weynta waa beesha hawiye waa xaqiiq taasi waxa xoolihiisa laga qaaday lagu diraa waa hawiye waxa wiilkooda lagu diraa waa hawiye waxa miinada lagu xigaa waa hawiye war bal adigu u fiirso ilaahay baa kugu dhaariyay gedana mudaharaad bay bil walba 5 jeer qabataa xamar afartooda ay soo timaado xabad baa lagu bilaabaya waa ka wararta war cilmiyada la yaabana way waxa arkaysaa gabar xamar joogto bood wadato baskoorad lagu hayo iyo gabadh dadkii ka wadato gada ka mudaharaadaysa arkaysaa AK47 la mudaharaadaysa wax la hadlayna male marka cadaalad cilmiyada laga yaaban yahay weeye xilligii kacaanku dhulka haystay baa waxaa la yidhi qabyaalada ha la aaso right golaan baa la weydiiyey wuxuu yidhi iyagana beeraya iyagoo meel qodiba qabyaaladii baa la aasma iyagaa beeri buuhi kuwana beeraya yidhi baa le haye sax waa kii kolku xamar joogay gabayada ku dhicnaayo waxa la aqoonin iyo jacbur
tirinayay صح ورنتا waxa laga daayay uu sida qalqalle turkan xamar baa u weyn qoonsi dirirada hargeysada qabuumi adisho qowlal ka xidhana markii madaxdii jeel lagu qabiray qoosada dabadeed qaahiro u tooduumi iyo qoola xarbeed aha dulmigu wuxuu buu duleeyahay waxba laguma helo حقيقي وين marka ninkayna farmaajo la yiraahdo haddii aan hadda la iska qabanin anigu waxaan qabaa qarannimo Soomaaliya in la waayi doono oo weliba laga samri doono 30 sano dhibku siyaad bargeystay la meel loo doonay ilaahay ma jeerteenaya uu bixiyo wax soo tafshay oo xogaayro dib loogu noqdo dadkii hunguri galay keenay war waxaan kala daadiyay hadana waxaan ku sheegay ma wariga waxa aragtay madaxweyne ku bixinay ummadda Soomaaliyeed in la caaya lacag waxyaabaha inuu cusub dhaqanka inuu cusub weeyaan aan ma artay la yaab kala weeyaan CBB war 10 sano nimanka hawiye joogeen meesha ruux beel Soomaaliyeed caay oo hawiye wallahi way dhigtay maqal aha hatta Soomaalida 10 ruuxa ka soo baxda shan baad dadka caayda dhaqan xubin keenay haye waa cilmiga laga yaabay right 10 ruuxa ka soo baxda marka waxa weeye in adeer qolyo galbeedkan daga ayaa waagi hore nimanka ogaadeenka fardoole waxay wax dhib badan bay ahaayeen haye beela marka Soomaaliyeed mar walba ka tireer baa Soomaaliya ku dhex noolaa oo deelaga yar ku roon yahay aha reebay iskala dagi jireen waxay oran jireen absamo waa qodax ku midiyo tula iska bixiyo haye wardaarod waa qodax lagu bixin jireen waa daarood ilma reyaalow ninkaas beenaalaha ah ee nahabka ay madaxweynihii hore sheegan jiray labada nin baa qodaxdii lagu saaraysay ma taageeraysan mise waa taageeraysan Soomaaliyeed farmaajo waa qodax dani Axmed Madoobe qodaxdii lagu bixin lahaa way iyaga ba saari kara leedahay waxaan iyaga inuu saari haween sawir ma fi sawir way haye haween sawir xabada bada ku qabta mooye balkiilahay ilmigi kala dhan la awood meesha kuma garma warniyo al xuquuq isku soo duuduub xaqan adkaad leyseen dhinaca galbeedka waad ka hadlayseen xafarta weerar ku soo qaaday ha halkaas ma artay laga dhigayo ku laayeen ha hal baan idin sheegay haye horta degmooyin qoladan ciise ay degan yihiin oo waxa jira bariga dhinaca farta u go'ay aha kamben baahayd ma la sinaa uu doorasho ku galay waagii baabil iyo la goosanayay oo ummado badan dhul ay leeyihiin la soo jirtay baa jira sahaye codadii waxbaa lagu raadinayay aha arrintaas kolkii ugu horreysay meeshu khaladku ka bilowday kamben baahayd haye dagaalkan hadda holcayana waa kamben meel ku qoro yaa kamben ku galaya ma isaga laftiisa kambena haye hadda tusaalaan ku siina labadan reer ee meesha wada degan nimankan ciise iyo nimankan afartan la yiraahdo ha waa wiil yaabtay adu hadda Djibouti tagto wala waraasi laakiin wiilka afartan laga raas maayo meel ku qoro soo saama taqaanid haye waa muwaadin buu ka yahay aha meesha labadan beelood weligood way wada deganaayeen waana dad wiil iyo abtiya oo isku dhaqan oo isku labisooda weligaa kala garanayn wey ما ورنت لكن مدة انت ودغالمين باش قولان كانتنا iyaduna dhul balaarsi bay wadeenoo nimanka EBR DFT baa siisay dhulkan marka dhulkan qoladan maarta ciisuhu way sheeganayeen iyaga askar aha waarun baabili yaa lahaa baabili fikiga muuqatay yaa lahaa Soomaali baa lahayd Soomaaliin baabili noo muuqatay Soomaaliyeed Soomaaliyeed ma ahayn 98 boqolkiiba waa haddana maanta waa gabaabsi xagee laga xukumi jiray waxa laga xukumi jiray Dirdaba mutijiga maanta Soomaaliya gurma kaga jira hakay yaabin may gacantu ka baxay waxyaabo badan oo saaiska jira marka waxay meeshan maadaama dagaalka nimanka ciise u badan yihiin in la geliyo codayn la geliyo oo dawladdu iyo maamuladu ay keenaan bay ahayd maslaxo dhulka lagu soo celinayo
dagaalawnu ka dhici karin maanta waxa la yidhahda wixii ciidan iyo boolis gobolkeenna joogay waa la guray haye xataa meelo waxaa jira furmaayo kaga jiranoo xuduudda oramada iyo beele isdhigayo kuguna dhex jireen iyo waxyaaba badan baa jiray way jiraan dhinaca gobolka baali oo kale iyo ciidanka o dhan baa laga soo qaaday oo xagga doolla xataa waa laga soo qaaday ciidankii waa laga soo qaaday soo maaha dad fara badan kolkaan maanta waxay annaga la rabtaa inay cafari dhulka naga qaadato ninaan u malaynayno boolisa kolkaasa waxaan ku yidhi inaad meel candhufan la yidhaahdoon luuqadeeda hataa magacaada u fiirsato waa cafar inaynu gudaha u galno xadka canfarta dagaal kolka dambe waa la yidhi inuun cafar laasiga ugu dambeeya hadduuna milatarigu ka soo gaadhin soomaaliya cafar waan isu naqaanaa jigjigana ay xabashidu doorashada ka gasho haddaan idhaa xabashigu jigjiga doorashada ka geli maayaa la tiraa xabad baan kugu dhufan waad ogtahay jigjiga xabashi waa ka sharaxan soo maaha waa ka sharaxan welibana xabashidii hadda jigjiga joogtay ilaa shalay waxay taageersanaayeen oy maaragtay cafartay taageersanaayeen baa la yidhi kuwii jigjiga joogay weeyaan haddaba cafarta xad baynu leenahay xabashi xuduud malihin xabashidii xadka suudaan bay ka timid waa runta xad malihin xabashida cafarta iyo oromada iyo mar walba waa dad iyaga loo baahan yahay inaynu nabad iyo xasilooni iyo caqli ku wada noolaano wey su-aalaa ku hadda waxaa hadlay ninkan muxuu ahaa afhayeenka ma xagga ammaanka cafarta wuxuuna sheegay oo tv-ga weyn ee etoobiya ayaa ku hadlay wuxuu yidhi cafarta waxaa soo weeraray buu yidhi somaliland ciidankeedii jabuuti ciidankeedii iyo dowlad degaanka ciidankeedii iyo al-shabaab baa soo weeraray buu wax ka jawaabayna ma lahan ilaa iyo hadda wax dowlad degaanka ama ha ahaada ammaanka ama ha ahaadaan wasiiradan kalete ka yimid gobolka city ee ku jira baarlamaanka ee federaalka jooga wax ka jawaaba male waa maxay sababta uga jawaabayan in la aaminsan yihiin bay kula tahay si fiican waxaa la yidhi toos nin laa u galgasho tollo wuu irkiyaa maama soomaaliyeed baa sara ahayd saxaye beeshan maanta uu dagaalku ku socday deegaanka uu ka socdo dagaalku uu ka socdo soomaalida dhulka wayna wada leedahay wayna kala leedahay waa deegaan ciise sax waa beeshu ismaaciil margeela ka dhashay kow dheh kala fayeenka baarlamaanka laba dheh sax ugaaska beesha ciise saddex dheh madaxweyne ku-xigeenka midna kamuuna hadlin كمان هذه حقيقة هي واحد لمن قالوا بقيرنا يو فيسبوك إذا على كقيرنا يا ورنا قرأتي هي قبل عن فرع السوق أي فنيان برلمان كمين ورنين نمشي هذا كده لما يندع كسرنا عدد كنا لين يسمين ورن وايتي واحد شو بينه ملهن وحلا لي يابين واحد شو ملهن سوما ما جرت كا يابين ولا بروها هذا فرع oo ah afayeenka maartay golaha federeeshinka uu fadhiyay kamana jawaabin maanta la isku dilayo waa xadka Djibouti taqaaniin karmayo gobolkan waa gobolka xadka Djibouti laakiin gobolkan ma garanaysaa hadda la isku haysto cundu fi caday garbaciisa waa dhul Soomaaliyeed ma fahmaysaa u kaadi gal jira magac kasta ha wataan marka in loo gurmado dadkan oo la difaaco waajib baa inaga saaran laakiin dadkii mas'uuliyiinta u ahaa maxay la aaminsan yihiin su'aasha aan u fahmi lahay waa midaas difaac qaleeysan baa loo baahan yahay muxuu ahaa qorraxay iyo ka imaanaya nogob ama ka imaanaya shabeelle iyo doollo ayaa ku dhintay maanta iyagii oo maartay welibana awood leh dadkaygii baa la laynaya xataa uu dhihi waa aadan faarax marka meeshuu ka soo baxay laga soo dooranayo aan ka soo baxa leeyahayna waa meesha city weeyaan gobolka city weeyaan fahmaysaa waxaan ku xusuusinayaa dhamaka makanan waa nin xabashi ah oo waana ra'iisul wasaare ku-xigeenka markii ay nimankan binshaqul gumuz ay laayeen xabashida wuxuu intuu tagay oo shir ku qabtay wuxuu yidhi waxaan ciidamaan idiin qoraynaa oo maleeshiya oo xabashi ah oo hub baan siinaynaa buu yidhi oo iska celiya buu yidhi ma fahmaysaa waa ra'iisul wasaare ku-xigeenkii dalka maxay marka oo ay dadkooda ugu hadlayeen xataa u dhihi waayeen war dadka annaga baa la xasuuqaya oo la laayay guryihi baa la gubay hadda magaalada cadaytu waa la haystaa dhammaan oramaha waxaa qabsatay nimanka cafartaa qabsaday oday 80 jir ah 90 jir miyaa la yidhi oo laga cararay
dadkii magaalada xaafadda waa ka carareen guryihii ayay u yimaadeen qowraceen baa la yidhi cadownimadooda ma fahmaysaa marka maxaa aamusiyey mas-uuliyiintooda midaas aanu fahmi lahayn la hadda meel walba ogaas may maqashaa injineer waa ku maqlayaa si fiican haa meel walba ilmo qoorqoor baa jooga innaga kuwaasaba inoo fadhiya waa ilmo qoorqoor sax kursiga ilaashanayaan waxba kama hadlayaan waa calooshoodu shaqaystayaal aan noloshoodii dadka ay ka dhex yimideen habeen weligaa miyaad aragtay nin soomaaliya baarlamaanka etoobiya intuu ka kacay farta taagaya oo miiska garaaci ma aragt naba ma aragtay hadda kuwan kenyaan anigu ka jeclahay 100% baarlamaanka xataa iyagoo kukuyada garaaci baad arkaysaa oo dadka ku haya oo miiska garaacaya oo loo geli laaya هذا ضمير له حق وضع راتسني ده ضمير له ايه وانا ما صومالي وكاغر هذا اللي ممكن نوضي ميرون شويان اها روح صومالي حتى على مرات كري لسه تاين على حمر هدوك يم لما عليك ري لي رايت وحوي ولا العروق ماشن دقال كان دولان كان له فكر كدوان بان قبا ماشاس صح دقال كان ممكن انفرتها إنه هل هو ولي يكون كان يتوب بيست لأنه الصومالي وش تابعنا سموي وحقيقة وكل شيء يا ولي بنا حتى حلين الصومالي أنا صورت ولي بنا يعني ما كعرف كتبنا كفر دانست الصومالي بعطاي أورما دانست الصومالي بعطاي حبشية دانست الصومالي بعطاي ما دام يتعسي شرطه حدا يتوب بيه قبل كينا بس عن نبتكا بحيدا كلانا ويهول حيسا أها أرمتها marka waxay ahayd maadaama Ethiopia taageerta Janiska in laga faa'iideysto aqal lagula diriro oo la yiraahdo meesha shucuubtan shacabkan uu diidan yahay cod hal la geliyo oo hal lagu noqdo maadaama uu dadkan ribin in la qasbi maayo asalkii hal loo noqdo dadkan Soomaalidoodii bay rabaan dagaalayuuna dhicin dadkan ayaan la laynin in la yiraahdo ahayd oo kan xun sheegay hadda arsoo fadhiya uu yiraahdo dadkan ay ma rabaan anfar Soomaalidoodii bay rabaan hal madax badan inuu yiraahdo وارنتها لكن عاود ضمن ماذا الواحد لها عاوي نول بو حوي وهي قرقور كشفتي كرسي الى عشان احمد وحسن جيل كلمه هذا وريه ماريابا ربا انه wax ku weydiiyo line ku jiro oo dhageysadalkiisa ay wariye shooda aad u maqashay geel ma maqla xasan geelle waan ku maqlaa hadda in adeer horta waa beenta maahan oo Soomaali oo dhan ilmo qoorqoor baa ka buuxa ama ha jooga jijiga soo sheegtay ama ha jooga galmudug Soomareeb ama Hirshabeelle ama Muqdisho ha noqdo inaad daawanaysa xalay baan u maleynayaa baraha bulshada ninkii loo magacaabay gudoomiyaha gobolka Banaadir Cumar Finish ee u dhashay beesha musadegtay Mudulood wuxuu yiri ariyaa dawladii waxay soo geliyeen oo yiri ninna iyo u talin dawladii hadda tan ka horeysay Xasan Sheekh warqad buu qoray Shariif warqad buu qoray sidaad la socotay oo macnaha Sheekh Shariif iyo Xasan Sheekh xafidullah labada madaxweyne warqaday qoran xilka ay ku wareejiyeen inay doorashada dhexdhexaad ka yihiin ya maalinba waxay ninka sidoo u hadlayeen oo anigu hadda beeshu ana la dhashay walaalkood baan ahay mana waxaan ka wadaa macnaha cid walba ama jigjiga joog ama Muqdisho joog raalli haw ما يسوي انتوا كبحين احمد انتوا كبحين سؤال ما ربع ما يا احمد كلا ku jiro oo Minnesota naga soo wacay oo muddo khad ku jiro hadda wixii waraaq wax naga sii geel jiro ma isoo ka bixin geel jiro aan ku laqimay kaada awowgi la gub cabaar baad in la qimaysi beesha reer awowgi la gub horta midna waa kugu taageerayo sheekada ka hadlaysay Jubbaland markii dagaalkii Ethiopia 77 dhacay dadkii reer Ethiopia macna kililka ka soo qaxay ee Soomaalida ahaa Soomaali galbeed waa laga dhowray oo siyaasadii Maxamed Siyaad Barre inay geyso Kunturwaarey iyo Jubbaland inay degaan ama Doobley degaan meesha Axmed uu ku dhashay ka yimid way u diiday marka had iyo jeer waxaad u jeedaa in uu yahay waxa loo yaqaan isil soo ama sifaysi waxaan ku sheegayaa marka haddaba beeshan waddanka ka talisa oo Maxamed Siyaad Barre ku reerka ah isirfaysiga ka hadda may soo bilaabay 1977 dagaalkii Ethiopia iyo Soomaaliya ayay ku sameeynaysaa beesha
kablalax ama ogaadeen si aad u ogtahay annagana hadday nagu samayso hirshabeelle iyo galmudug iyo dadka marka iyo ragga fadhiya baydhabo dadka noo wakiilka waad ogtahay waxaan kaloo kuu sheegayaa axmedow geljirow in adiga qudhaadu aadan ka marnayn oo ay jirto wax la yidhaahdo the evil access waxaa la oran jiray saddex gacmeed ka dhaxeeya hitler mussolini iyo boqorkii la oran jiray hirohito ee jaban ee dagaalkii labaad ee adduunka hadda waxaa jira evil access ka dhaxeeya ninka ka farmaajo ee fadhiya villa soomaaliya iyo abiye oo fadhiya magaalada addis ababa iyo kililka cafarta madaxdooda qoladeennan reer jigjige adigu aad u dhalatay iyo dad badan oo ehelkeenina ay u dhasheenna waxa weeye warba uma hayaan in hoosta ay ka wada socdaan abiy axmed iyo farmaajo iyo siyaasa farwaarka cafartii baa laynagu soo yeeciyey ujeeddaduna waxay tahay aan kuu sheegee in dadka u dhashay reerka aad ka dhaltaan la hadlaya haddii maanta dagaal ka dhaco jubbaland ama puntland oo dowladda federaal ku qaado inaysan dadka ehelada u ah ama asxaabta u ah ama deriska u ah ama degaanka la ah inaan garab la siinin puntland iyo jubbaland ama galmudug ama hirshabeelle oo laga mashquuliyo waayo nin dagaal ku furan yahay furin labaad iskuma furi karo taas maxaad ka oran lahayd marka geeljirow arrintaas hoose oo dagaal ninkani wuu samaystay meel wuxuu samaystay adduunyadu maxay cunaqabatay saartaa maxay ka carta maba u baahna in turki iyo germany geeljirow kaad intaadan gelin waxaa weeye soo gaabiyana waxaad kala ku jire waayahay intaanu gelin maana ku jira hadda madu geeljirow waan ku saxayaa horta waan ku saxayaa marka koowaad waxaa weeye su'aal miyaad weydiisay maxaa ugu dambeeyay su'aashaas saddexdaa degmo aad sheegtay weligeed awowgeed iyo aabbaheedna ka mid may noqon cafar waxay ahaayeen deegaanka soomaalida ayay ahaayeen waa layna sugayaa in badan baan ku jiray qadka dhegeyso maad maqashaa soo gaabiya fadlan deegaanka cafar weligood may noqon deegaan soomaaliga ay ahaayeen TPLF ayaa dhul iyada ay doonaysay inay soomaalida cafarta ka qaadato darteeda ayay kuwan ugu bedeshay marka sidaas daraadeed dhulkan dhul Soomaaliyeed ayuu ahaa cabdi maxamed cumarna waa lagu qasbay inuu dhulkaas iyo aadan faaraxi ay saxiixaan oo ay muxuu ahaa ii sheegay dhulkaas ay cafar siiyaan laakiin dhulka weligood iyo allahoodba waxaa iska lahaa ciise dhul Soomaaliyeedna ahaa ciise degan hal qof oo cafariya ma degano ilaa haddana ciise degan waxaad arki kartaa dadka degan magaalada hal qof oo cafar ama hal guri oo cafar kuma yaalo marka sidaas daraadeed maadaama ciise ay guriyaha dhulka ay leeyihiin inay degan yihiin dad dhulkooda dhulkan laguma dari karo odagan hadda 90 jirka ay shalay cadhuufo meesha leedahay ay ku dileen way jarjareen way googooyeen si cadowtinimo cadow weeyaan cadow warna hadduu dagaal yimaado oday baad sheegay kawr ku jira la jarjare dhegeyso waa waxaan suurtagalay adduunka kama kala hadduu dagaal yimaadayna waa la jarjaraya hal qaacido iyaduna jirtaa jirta dadka xigaasiriin haddaan soomaalina waan riixnaa inaad la socotiin iyo kala mooye weligeed waxaan ka rabaa federation ninka haysta aadan faar waa ka bixi lahaa waa lagu dhigantihiin ninka haysta aadan faar arrintaa muxuu uga hadli waayey cafar way hadashay idaacadda Ethiopia ka hashay telefishinka Ethiopia ka hadashay waxay tiri waxaan soo weeraray al-shabaab waxaan soo weeraray liyu police waxaan soo weeraray Djibouti bay tiri iyagu maxay uga hadli waayeen oo dhihi waayeen Djibouti ma garanayno al-shabaabna ma naqaano Somalilandna ma naqaano annaga idin soo weerarna annaga iskiin celinayna maxay u dhihi waayeen way u hadli waayeen su'aal u baahan iyaga in la weydiiyo iyaga hala weydiiyo su'aal u baahan iyaga in la weydiiyo weeye waa runta okay gel jiro waad maasan tahay telefoonka kale ugu jira waan kaaga mahadnaqaynaa waa aad maasan tahay walaalkay okay Ahmed baan siinaynaa from Minnesota السلام عليكم احمد. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. رالي هو وحويان وخدكم كوgu daahinay long time karaalي هو welcome soo dhawow shirka afisione وفرماتير waa fashilmay sida waragtaa soo loogu talagalay marka hore inuu waxba ka soo bixin israacsan labadaba iyo dagaalka cafarta soo qaaday labadaba israacsan welcome Ahmed. waan salaamaya tuman TV dhamaantiin intay dhageysanaysan waa salaamaya radio dumarba. salaam allah. sidaan loo caajisin TV-ga dadka ku jira ku qaybiya dadka aragto marka waa su'aal ka codsanaya waa ka aqbalay okay tafarmaajo shirkii afisione markuu diiday beesha caalamku inay timaado inuu fashilmo isaga ugu talagalay waa number 1 horta taasi
nimanka saddexda gobol ee isku xiga degan iyaro tusaalaan u sheegaya hadday dee qaadanaya way garanayaan inay qaataan ma rabaan laakiin haye sax inta aan garanaya way garanayaan haye laakiin inay qaataan oo tallaabada qaadaan bayna doonaynin okay waxaan leeyahay galmudug hirshabelle iyo banaadir صح farmaajo xabadiina iskaga kaxeeyaan mayna kaba tegayo arrinta waa lasku raacay haye boqol goor waa markii sideedada latimaa tv ka ilaala kelmad I agree والله wax badan baa tiri wax badan baa sheegtay ninkaas doorasho weligii qaban maxaa tiri haye isagoo oo weliba sanad uga dhibman yahay xukunkiisa ayaa kelmadaha sheegay aha saddexdaa gobol dadka degan oo aanu qabiil magac dhawi maaye farmaajo xabadiina iskaga kaxaysaan mayna idinkaba tegayo ogsoonaada right naftay jecel yihiin ma odhanaya I don't know oo xamra burburtay weeyaan xamra dhisan bay arkeen hadda صح waa fuliyiin ma odhanayo laakiin daarahay daraynayaan baan u malaynayaa hadda iyo saraha aha maya in adeer aan kuu sheega anaa u dhashay saddexda beelood oo aad sheegayso waxaa jirta waxaana lagu istaambeeyey inaan nahay mooryaan dowladiid ah adduunyadii baanu tusnay inaanu nahay hadda dadka doonaya inay soomaaliya mid noqoto maxaa la yidhaahdaa ti dowladiidna aanan ahayn saasaan hubka u qaadan laanahay in adeer dowladiid baa tiraado idinma odhanin war farmaajo adiga maaha adduunyadaa waxaana lagu istaambeeyey fiiri in adeer waxaana lagu istaambeeyey mooryaan dowladiid dhac kufsi wax aanan shaqo ku lahayn taa waa isla wada ognahay dhegeyso meel kusmaynaa kala maqnayn soddonkii sana ama afartankii sana waan wada joognay okay war farmaajo idinkama tegaya haddaad sab jeclaataan iyo haddaydaan jeclaanin fulayiin baa tiin anugu idinma idin odhanayo horta taa ogaada I agree with you waa kugu raacsanahay beel caalamna idinka kaxayn mayso beentaa maaha maraya sii daadihi waa 5 daqiiqo ya okay way beel caalamna idinkama kaxaynayso ama guursada oo haysta ama iska kaxeeya ina farmaajo maya axmed way tegaysaa waxay tegaysaa waxaa la yidhi haddii fooli timaado guda qarsi ma leh sidaad u og tahay sacuudiga waxa dhacday axmedow gabar pregnant ah ayaa dhakhtar la geeyey oo foolanaysa markaasuu ninkii qaba yidhi inay naagi dhaliso mooyaane nin ma dhalinayo dhakhtarad naagiina ma joogin meesha markaasaa la yidhi way isku dhimanaysaa suu yidhi ha isku dhimato ilaa markii dambe boliis dadkii ay gabadhu ka dhalatay reerkeeda u yeertay oo qasab dhakhtar maxaa la yidhaha ninuu gabadhi ka umuliyey marka meesha soomaalidu wax rag loogu waa maamaa jirta haddii umulu timaado guda qarsi dhaaf waa sidaad u sheegtay axmed beel caalamna naga kicin mayso warqad dhowrka gobol isku xiga ma garat warqad la qoray iyo shir jaraa'idna naga kicin maayo inaan xabad isaga kicinna mooyaane beentaa maaha okay taas horta intaas waxaan hirshabelle galmudug iyo banaadir baan ku uri kelmadaas jubbaland baan u gudbayaa haye u gudbaye jubbaland dadka degan ina farmaajo waxa hubka u geenaya gedo waa inuu ku qabsaduu rabaa waadna ogtihiin intaan garanayana waad garanaysaa waa iska quite clear waa caddahay alwar marka saa isaga celin lahaydeen diyaar garoobi lahaydeen ku fakera waa reer jubbaland bay ku socotaa taladaas haddii ina farmaajo madaxweyne kusoo noqdo iyo hadduu ka tagaba meesha uu ku wajahan yahay waa jubbaland waa quite clear way caddahay taas okay puntland baan aadayaa ku soco puntland waxba farmaajo biyeeli kara ku samayn kara ee iskaga soo tag axmed siciid dalow muqdisho danahaaga qabso garow iyo dalkaaga ku noqdo waa sida ugu habboon ugu wanaagsan waa inuu waddanka magaaladiisii iyo shaqadiisii iyo reerkiisii ku laabto hay puntland saasaan leeyahay siciid deni okay waxaa ii soo haray kilalka etoobiya soomaalidu degto aha haye kilalka soomaalidu degta ee etoobiya speaker baarlamaan ha fadhiyo ama madaxweyne ku-meel gaar ha ahaado ama wasiir ku-xigeen ha ahaado ama xildhibaan ha ahaado waa handaran qoorqoor weeye dhammaantood handaran qoorqoor axmed nin jira waa nin khatara wallahi 500 qoorqoora horta weeye
عديتي عضوفة على هلا يا اللي كماش هذا كمرجال كان شرب ودشي شرب هذا عنفر بشيء قبل هريدة أو صدق بقول كنا هذا يسوي وردا كما حلك ما لك هلا يو أوكي وين تسرتها وين تكتيك يتكشف حال الشيء حمارنا عرقداي حمار حد ملهين حدودنا ملهين صح almost waxaa noo dhexeeya 700 kilomitir ninka shishii waayey naagtuna tijiga iska sharaxaysiya nin eena waa muwaadin isaga soo dhaweeyay waxa tijiga hadda intuu isagu meesha qabsaday isu injineer Axmed Mukhtaar waa isla ognahay haye ninka shishii waayey oran jiray waa tijiga aan Soomaali ahayn iska sharaxi karto دقيقة بقول هذي اللي قبضها قبضنا مية أورا كرا وما يوي. ماي. أقول سلام وتجا أوكي واي. ستي من هذا يا مركا. أوكي. كستي واحد لا يعني. هذا إذا كنت صحرين الدموين كنا إذا حرسنا أبتشبوت ويانا. أما عيدا قرطة. وحلا إذا كان إذا ما في الدوران المال استسعار إذا. Soomaalida u dhawaaqdo kaalay wax la taraa ku yiraahdaa iyagoo dhawaaqan baa lagu aadaynayaa hadda ninka amaanka wuxuu ku leeyahay ba Somaliland Djibouti iyo nimanka afka dubnaaba dagaalka ku jiro ku leeyahay okay waxa jawaabayna mal ilaa hadda ninka Djibouti soddonka sano xukumo waa Ismaaciil Umar Gela waa Ciise runta meel dir labaagteeda ku dhashay صح runta adiyada laga doonayo oo gobolka City ka mid ah اوكي رئيس الوزراء سواء عنفر وبكا شدالك ماشي لو كان waa Djibouti عفرت dagaalamaysa haye yes اوكي وفيرسنايا وركوب فيرسنايا walaaladii iyo meesha ku dhashay waliba haya darrawee صح marka dadkii haday wada qorqor noqdeen maxaa la sameeyay هيا درها تاعي والله وارد